الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أنت شرفت له سود هذا مال والبوات كسرنتين ودكتور صادق أحمد عمر كلام الله معلومة ونأكسن وحندب بلاوينا عشرة ديني ويحكى ديارنا كلام سكولات جري هودي مركلا يعني إنك لو تعرفين أنا خلق السجا إن ما أنت سيدان هرب بلاني وحنك لنا waxyaabaha lagu garto ama calaamadaha lagu garto uurka oo ay ku ka tahay qofka dumarka inuu isweydiiyo hadii uu yahay xaas la qabo maxay maaragtay dareemaysa ama ay la kulmaysaa marka ay qaado uur ama laga rabaa inay filto marka ugu horeyso intaysan gaarin xaalad maxaan ku raadaa uurkii banaanku imaaday oo culays iyo isbedelo fara badan qofka martagii la labi iyo waxyaabo fara badan dareemin ka hor sidee ayuu ku ogaan karaa xageena maaragtaa uu wax ka fiirin karaa okay bismillah waxaa marka hore ku bilaabaynaa waxay tahay menstruation cycle-ka ama xilliga caadada dumarka ku dhacdo waxa waaye bil walba aakhirkeeda iyo bil walba horaanteeda qeybaha hore marka si loo fiirso waxay u badan tahay 3 maalmood in barnaamijkaas caadada uu qofka dumarka hayo waxayna gaari kartaa ilaa 6 maalmood أسبوع أما 7 مالمود حدي 7 مالمود أي كبر تمرك هاي ما نيسو مسكرج أما إن أوركي واحد كبحي تاسو سوي كرتا مركا إن قفك اللي بهاي إنه لقول مصدق دقة أكتر كنت خصوصي غرابة حوالك وقاين كلش كانوا بستاتك وحامرك مهمة هدي قفك حاط لقبوية هاي menstruation cycle كي نبيشان وقصور دعي هران تيدي أما دوية قدي وقصور دعي after that بشي كلام مركي وقتي isku arki jirta caadadii ay miskarowdo ama la waayo waxay noqon kartaa suspect ama in qofka looga shakiyo inuu pregnant yahay ama uu qaaday sidaas si la mid ah waxa la rabaa qofka inuu hadana steps kale la sii raaco waa dhici karta postponed menstruation cycle inuu yimaado qofka waqtigiisii marka qaar isbuuc ama uu soo dib dhaco dhici karta laakiin inuu hubanti badan ku siiyo arrinkaas isagoo maraya marka isbuucan hadii salaano kala bisha shanteedii ama afarteedii ama saddexdeedii bil kasta ay isku arki jireen hadii marka meeshii ay timaado in bishaasi saddexdeedii isku arki jireen in ay maanta si dhaafayso 4 marayso ama 5 marayso salaano kale waxa loo baahan yahay qofka isaga inuu muddo isbuuc ah raajiyo arrinkaas isaga hadii isbuucaas saddex ku darto 7 waa 10 maalmood 10 maalmood hadii la dhaafto oo 10 maalmood 12 maalmood si mar ay waxaan meesha ka dhalanayso in qofkaasi suspect geli karo ama dhihi karo uur leeyahay ama uuran leeyahay dhihi karto qofka dumarka taas waa marka qodobka koowaad maaragtay shaki gelin kara in qofka dumarka uu dareemo inuu qaaday uur hadii uu yahay xaas la qabo qodobka labaad isagu mujra wuxuu yahay oo lagu hubin karo isagana idan diagnosis ama baaritaan la sameeynin character ama dabeecadaha qofka oo isbedelaya for example qofka wuxuu ahaa qof furan wuxuu soo bedeli doonaa qof xogaa yar qalafsan ama dabeecad xun la soo baxa sababtoo ah isbedel ayaa meesha ka dhacayo hormones ee jirka ka shaqeynayo agi ama OVhi female ka ayaa waxa la sameeyaa maturation iyo maxaan ku raadaa mitosis deficiency waxyaabo fara badan ayaa ku dhacay oo qaybsana macna inay badato waxaantii ay maaragtay ku dhigto intrauterine wall ama derbiga gudaha uterus ku dhigto taasoo marka dambe keenaysa in qofka dumarka ay xaaladaheeda dhan isbedelaan xanaaqi dabeecada qalafsan iyo hadalla kulul iyo qofkii bilcagsi dadka qaarna waxa lagu arkaa dabeecada taa ka duwan oo ah in qofkii uu noqdo qof maxaan ku raadaan jiif iyo hurdo badan la yimaado tusaalahaan oo kale haddii maaragtay subaxdii uu soo kici jiray oo duhurka seexan jiray jiifka kalena habeenkii waxaa dhici karto inuu subaxdii barqadii oo kale meesha ka niraahna hadda baqal libaaxiis oo kale uu seexdo qofka dumarka ahaa duhurkii haddana uu seexdo casirkii haddana hurdo ay hayso maqribkii haddana sidaas oo kale markii laga baxo ceshihii markii la maraayo maaragtay hurdo badan hayso oo aad maaragtay uu lulanayo ama uu hurdoonayo marka waa calaamada labaad qofka isbedelka dabciyan ku imaanaya ama character ku imaanaya lagu ogaan karo in qofkaas uu maaragtay suspected labaad yahay inuu cudurka qaaday in kale waxa idan intaasi dheer oo lagu suspect karaa ka hor baaritaan qofkii in maxaan ku raadaan uu dareemo maxaan ku raadaan la laba ay soo gasho la labo waxay ka mid tahay calaamadaha walaca dumarka ay u yaqaanaan
waa in xaaladii ay sii marayso xaaladii meeshii shalay ay joogtay oo character qofka isbedelayay inay sii adkaanayso matag iyo laba iyo wax badan la imaan doonta marka wixii meeshaasi maaragta ka dhacay isbedelka ka dhacayaan sababayo in qofka dumarka mar walba xaaladiisa isbedesho oo ay xaaladu adkaarto marka taasoo sabab u ah marka in qofka dumarka isbedelka ku imaanaya uteranka ama ilma galeenka ku imaanayo ay saameyn ku yeelato maskaxdiina ay reaction qaldan bixiso marka taasoo qofkii marba si ka dhigaysa mar qof hurdo ka dhigayso mar qof xanaaqsan ka dhigayso marna qof maxaan ku rahdaa emotional hematomesis ama matag fara badan oo mararka qaar xitaa matagays dhiig soo raaca oo aad u matagayo gaas qabo qofka u malaynaysa ayaa la karaa marka iyo inuu u baahdo waxyaabahan dandhanaanka waa qayb ka mid ah idana qofka ma ooda u baahan inuu ku ogaado ka hor baaritaan rasmi ah oo caafimaad inta uusa tegin inuu raadiyo waxyaabahan dandhanaanka waa aragta hadda gabdhaha markay bilaabayaan bisha ugu horeyso uurka waxaa arkaysaa inuu aad u raadiyaan liinta iyo cusbada iyo qaara xitaa maraq jumbaha aad u cuna oo sidiisii ku cuna qaar kaloo waxaa jira kuwaas ka sii halis badan oo iyagana maaragta buxusha cunaa iyo carrada waana waxyaabo keeni kara halisteeda iyo cuduradeeda wata taas insha allahu tacaala waxaan uga hadli doonaa xiisada xigto iyo muuqaalka ka ku xigo laakiin waa very danger qofka dumarka inuu silaaliyaa loo baahan yahay intii dhanaan uu raadinaya haddii dhibaato uu keeno oo nafsadiisa dhibaato ku keeno oo ilmihii dhibaato ku keeno waa halisteeda marka inaad maraq jumbo cuntaa waa halis inaad dhuxul cuntaana waa kasii daranta inaad carra cuntaana waa meesheedii oo dareemi kartaa maanta qof carra cunay culayska ku imaan karo mindhicradiisa ku imaan karo calooshiisa ku imaan karo saxara keedintiisa ku imaan karo xitaa maaragta malawadkii ku imaan karo halis badan ku imaan karto meeshaas iyo maaragta walxaha carrada la socda oo bakteeriyaasha iyo bahlada dhintay dhan oo ku keeni kara systemic infection ku keeni kara iyagana waa meesha ku jirtaa marka waxaa loo baahan yahay qofka dumarka inuu ka digtoonaado markuu dareemo inuu u baahan yahay waxyaabo dhandhanaan ah inuu raadiyo waxyaabo booskaas buuxin karo jiro marka cashirkeeni koowaad maanta halkaasaan ku dujinay insha allah cashirka xigo waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu eebeedmo insha allahu qofka markuu uu qaato maxaan ku rahdaa cusbada uu qaato oo kale iyo markuu qaato maxaan ku rahdaa waxyaabaha dhandhanaanka maraq jumbada soo sheegay iyo maxaan ku rahdaa dhuxushi iyo markuu qaato bahashaan iyadana sidoo kale carrada iyo markuu qaato maxaa ka dhalan karaya maxaa ku imaan karaya hooyada iyo ilmaha intaba maxaa ku imaan karaya maxaana looga baahan yahay qofka dumarka inuu isticmaalo markuu u baahdo macdan ama bir markuu u baahdo dhandhanaankaasi mas-uuliyaddeeda raadintiisa qofku kalafayso maxaa looga baahan yahay marka insha allah cashirka xiga ayaan ku falanqayn doonaa aad ula socda janaalkana noo subscribe gareeya asxaab badanna u baahan barnaamijkana gaarsiiyo insha allah aad buu su-aalihiisa igu batay wax badan baan insha allah intaa hawdari doonaa si toos ah ayaanan idinkugu sharxi doonaa waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh